بسم الله الرحمن الرحيم كلنت wanaagsan daawadayaal meel kasta joogtaan soo dhawaada barnaamij gaar oo aan ku eegayno qoraalka ee akhriska kaas oo uu martin ugu yahay Maxamed Nuur Shire qoraaga buugaagta kala shakiye shalay muuqaalada xiriirka iyo buug cusub oo kordhow uu daafur doono lagu magac daray maxaa keenay kadeedka Soomaalida magacaygu Cabdullaahi Aadam Kanaac ku soo dhawaada barnaamijka Maxamed soo dhawow ku soo dhawow barnaamijkan aan kaga hadlayno qoraalka ee akhriska adiga ka shakhsi ahaan horta goorma kugu horeysay inaad qoraan noqoto isku aragtay inaad ka mid tahay dadka xirfadda qoraalka leh bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdullaahi Kanaac waad mahadsantahay soo dhawow aniga xilligii ugu horeysay oo aan dareemay inaan wax qori karo waxay ahayd 2007 oo muddo haatan laga joogo saan filayo 15 sano meelahaas xilligaas ay ugu horeysay waxaan ku bilaabay qoraalka inaan qoro maqaalo waan xasuustaa maqaalkii ugu horeeyay wuxuu ahaa lagu magacaabi jiray oo aan u bixiyay xilligaas Allah uu mar u burruf tiraahda oo ah qoraah laga hayo ama laga sheego dhurwaaga maadaama uu yahay xayawaan inta badan bulshada maaragtay xoolo dhaqatada ah ka ag dhow oo ay halgan ku wada jiraan xoolahooda mar walba ay isugu doonayeen in maaragtay quuto iyaguna ay aad u yaqaanaan ayaa ereygaas laga hayaa Allah iyo mar u buruf tiraahda macnaheedu ma aha inkastoo la sheego dad dhurwaaga af yaqaana waa la sheegaa laakiin muhiimadu waxa weeye maaragtay waa la soo qaataa xayawaan hebel baa sidaa yiri iyo kaas baa saa yiri iyo waa wax lagula baxo murti weeye afafkoo dhanna waa ay leeyihiin marka maqaalka noocaasa magacaasa la oran jiray Allah uu mar u buruf tiraahda marka waqtigaas buu ahaa 2007 maqaalkii ugu horeeyay waan qoro waan dareemay muddo ka sii horeysay in maaragtay ay ugu jirto in wax qori karo laakiin markii ugu horeysay waan qalinka qaato xilligaas ayay ahayd marka maxaad kaga hadlaysay maqaalka uu ku saabsanaa maqaalku wuxuu ku saabsanaa horta sheekada aan xoogaa yar ifiyo waxa laga wado waxaa la sheegaa dhurwaa isaga oo godkiisa ku soo hooyday xilli waliba maghribkii wax yar uu ka maaragtay ka harsan yahay oo maalintaas aan waxba soo helin oo gaajaysan in ay soo agmartay dameer hilba ku raran marka waxay u noqotay fursad qaali ah oo uusan fiilanayn oo hortiisa timid waa mare dameerta laftigeeda ayaa hilib oo cunaa marka labaadna waxa ay sido ayaa hilba ah marka aad buu u farxay intii uu ku maqnaa farxadda ayaa roob soo curtay baa la yiraahdaa kadibna roob aad u xoog badan baa da'ay oo yimid isla markiiba wuxuu watay roobku dabaylo sidoo kale onkod ayaa dhacayay marka dhulkuna wuxuu ahaa dhul bannaan ah meelay u dhaqaaqday ayuu garan waayay dameertii marka malaha markii horena ma uusan haleelin jihadii ay aaday inuu aado jiha kale isku qaaday markuu soo waayay oo quustay oo hadba dhinaca u orday oo ka quustay ayaa waxa la intuu fariistay ereygan buu yiri marka oraahdan oo ah Allah uu mar u burruf tiraahda yani si aad sanqadhi yaa mar dambe fursadii ay hortimaadaan si wanaagsan marka murtida waxaan kula baxayay xaaladda markaas Soomaaliya ku sugnayd aan leeyahay Allah uu mar nabadii iyo wanaagii iyo dowladnimadii Soomaalidu malaha dib u heli lahayd waxay ahaan lahayd fursad aysan dib malaha u lumiseen sida hadii dhurwaagaasi dameertaas ay mar labaad ay fursadaas ugu soo laaban lahayd
uusan u beerdareen lahayn. marka sanadkee bay waqtigaas 2007 baa ahayd. 2007 qoraalka iyo marka ay qalinimada waxa kugu horeysay waqtigaas si wanaagsan. buugan shaki shalay isaga laftiis waxaad qortay sida ka muuqata taariikhda 2014 ujeedada aad u qortay wixii kugu dhalay maxay ahaa buugan horta 2007 ilaa 2010 waxaan qori jiray maqaalo waliba aad marka dambeysa oo badnaa soo badanayay. xilligaas waxa aad u xoog badnaa oo la adeegsan jiray website-yada. kadib 2010 markii la soo gaaray ayaa waxa igu dhashay inaan qoro buug. marka buugga hadda aan soo wado oon weli soo bixin oo aan kan ahayn oo ah maxaa keenay kadeedka Soomaaliya ayaa hindisihiisu igu dhashay xilligaas. laakiin weli maadaama aanan buug hore u qorin fikrad maskaxdayda ku jirtay ahayde ma aanayn wadadii tooska ahayd ee aan buug u mari lahaa qoritaankiisa. iyada oo fikraddu ay sidaas iga guuxayso ayaa 2010 dhamaadkiisii waan xasuustaa aniga iyo rag kale aan ku jiro ayaa waxaan la kulanay nin qoraa ah Soomaaliyeed caan ah oo la yiraahdo Siciid Cali Shire ka qoray buugga hogaamiye iyo halka hadda aynu joogno makhaayada ku taala ee hoose ayaanu fariisanay xilliga. waan xasuustaa habeen bay ahayd 2010 baa dhamaad ahaa waxaan u maleynaa bishii December inay ahayd. kadibna waxaa la isweydiiyay sanadkaasi waa dhamaaday mid kala dhalan doona hadii Ilaahay nafta noo diisto qof walbo maxaa ku haminaysaa. markaas ayaa ragii meesha fadhiyay qofba wax sheegay. anigu wixii aan sheegay qodobadii aan sheegay baa waxa ku jiray inaan doonayo sanadka cusub ee 2011 inaan qori doono buug. waliba markaa labaan iri laakiin way ila fududeed in sanad laba buug lagu qoro oo khibradda ma lahayn. kadibna waxaan ku ballanay in qof kasta wixii uu sheegtay uu rabo inuu qabto sanadkaas cusub uu ka maaragtay ka dhabeeyo sanadkan hadii uu dhamaado oo Ilaahay nafta noo deystana inaynu iswareysano qof kasta wixii uga hirgalay waxa qorshihii uu sheegtay. marka buuggii hore oo maskaxdeeda ku jiray oo weli maskaxdeedii maaragtay ku baahsanaa oo aan aad u urursanayn oo xitaa magacan gadaal buu ka bixi doonaa kale ee kaas muxuu ahaa maxaa keenay kadeedka Soomaaliya baa maskaxdeeda ku jiray laakiin aad haddana maaragtay uguma diyaarsanayn. kadib sheekadan aan hayay oo shaki iyo shalay oo ka dhacday halkan oo ahay sheeko dhaba ayaan goostay inaan qoro. waliba waxaan bilaabay 2011 bishii 3 si aan sanadka qorshihii uu igu horgalay laakiin ma aysan dhicin oo sanadkii kumaan dhameystirin. waxyaabahan gadaal kaga qancay ayaan ka mid tahay sanad inaan buug lagu boobsiin karin waliba qof bilow ah markaas. marka isaga ila soo maaragtay jiitamay ilaa 2014 si wanaagsan. marka xilligaas soo saaray sidaad ii sheegtay qoraalka markii hore iyo curintiisu waxaad ka bilowday buug siyaasadda iyo kadeedkii dhibaatooyinkii Soomaaliya ku habsaday ka hadlaya. laakiin buuggan aragno wuxuu ka hadlayaa sheekooyin waliba waxa ku jira sheekooyin jacayl ah. marka maxaa ku bedelay hadii markii hore aad buuggaas aad waday? waxa bedelay horta markii sanadku uu dhashay 2011 qorshaheyguna yahay sanadkaas inaan la ekeysiiyo wixii aan ragga hortooda ka sheegay inaan sameyn doono oo buuggan ku jira qorshayaal kale ku jiray. hadda laakiin kan buugga inaga khuseeya saan ku sheegayna buuggii kale maxaa keenay kadeedka oo martaba gadaal uga bixin doono magacaas laakiin mowduucu igu jiray ayaa waxa ii fariisan waayay qaabkii aan u bilaabi lahaa. waqtigii baa marka isguray bishii koowaad way dhamaatay labaad baa dhamaatay saddexaad waliba qaybaheeda dambe ayaa waxaan dareemay oon arkay in buuggaas uusan suuragal ahayn qaabkaan u rabo inaan maaragtay sidaas daraaddeed sheekadan aan hayay baan waxaan siri iyada ku bedel
oo boobsiya. waxaa kaloo iyadana ii xigtay oo qorshaha buuggan soo hormariyay ahayd, maadaama uu ka hadlayo arrin maaragtay aan aada u weyneyn oo qof iyo laba qofood ku saabsan sheeko dhex martay, xoogaa wuu ka fudud yahay mowduuc ahaan markaad ka hadlaysa mowduuc siyaasi oo weyn. marka waxaan siiri maadaama bilow aad tahay alele kan ayaa ku fiican ama ku habboon inuu noqdo curadka buugaagtaada. masha Allah, waan kugu hambalyeynaya inaad isku sanad aad soo saartay laba buug oo kala duwan 2014 buugan oo aan waqti hore akhriyay, hadda dhawaana aan ku sameeyay dulmar. waxaad ku bilowday sheeko bulshada Soomaaliyeed caanka ah, sheekadii Kaba Calaf. waxaan ka xasuusataa sheekadaas. runtii buuggan saan mar dhaweyd buu kula wadaagayay 2014 ilaa iyo hadda waa 7 sano. 7 sano ka hor baa buuggaas qoray. fagaarayaal badanna waa la tegay oo aan uga qayb galay meelaha lagu soo bandhigo buugaagta ee magaalooyinka Soomaalida qaybo ka mid ah. marka mar hore runtii igu dambeysay buuggan inaan si u akhriyo, inkastoo qoraagiisii aan ahay. waxaana keenaysa bini'aadamku inuu wax ku soo celiyo xitaa hadalkooda ma jeclaystaan. waxa kaliya oo aan laga daalin waa quraanka Ilaahay oo maalin walba dee lagu tukado ugu yaraan. laakiin wax kaloo hadal bini'aadama uu qofku ka caajisaya. marka sheekooyinkan waxay ahaayeen sheekadan ay ku jirtay Kaba Calaf, sheekooyin aan buugga hordhac uga dhigay. ma aha sheekadii guud ee buugga ku saabsanaa shaki iyo shalay ma aha. marka sheekada Kaba Calaf waxay ka sheekeynaysay dabcan dhaqankii hore ee Soomaalida iyo habka ay gabdhaha ku xulan jireen. oo dee dareemi kartid hadda kala duwanaanshaha u dhaxeeyo xilligaas iyo haatan. waxyaabaha gabdhaha ay ku xulan jireen waxaa ka mid ahaa garashada iyo howlkarnimada, maadaama duruuftii markaa lagu noolaa welina dadka Soomaaliyeed in badan oo kamid ay weli ku nool yihiin oo ahay duruuftii xoolo dhaqashanimada ee miyiga ka jirtay. qof ka bixi kara ayaa aad loo raadin jiray. sheeko badan ma jirin. waa la isxaansan jiray oo gabadha wiilka maadaama la yaqaano dadka Soomaaliyeed aad isu yaqaanaan, waxaa laga yaabaa isagoo aan weli arag inuu warkeeda hayo. reer hebel gabar noocaas oo joogta waa saas iyo saas. aad iyo aad wax ugumay xulan jireen markay timaado dhinaca muuqaalka. way jirtay laakiin ana sida hadda loo xooga loo saaro ma ahayn. laakiin sida sheekada gunaanadkeeda ka muuqata qofku wax xulanayay gabadha ahayd wiilka ma ahayn. bal halka ugu dambeys marka ka soo qabato soo lama oran karo dumarka laftoodu baa waxay ahayn kuwa aad caqligooda u sareeyo, xulashadooda laftooda ay ku dheexneyd. aad iyo aad labada dhinacba gabadhuna waxay dayday jirtay oo ay dooni jirtay inay hesho ilmaha ay doonayso inay dhasho. aabihii ka dhali lahaa ayay aad u raadin jirtay inuu noqdo ninka ay rabto. taasaa marka waxay keenaysay in laftigeeda gabadha inkastoo dee dhanka kale ku badnayd, gabadha inta badan waa lasoo dooni jiray sida caadiga ahayd. marna dee dhaqanku qayb bay ka ahayd oo sida hadda tanba lama soo doonine waa lala baxsaday. way jirtay taas. laakiin inta badan dee gabadhu mar walba ama hadda ha ahaato ama xilli hore ha ahaatee gabadhu mar walba waxay sugaysaa geeyaankeeda. gabadh socoto oo guur raadisa ama tiraahda waa ku rabaaye guurso ma aysan jirin dhaqan ahaan. aad baad mahadsantahay. bug kale waxaa jira isna aad qortay oo shakiyo shalay la yiraahdo muuqaalada xiriirka. exactly muuqaalada xiriirsan oo isagana sheekooyin kooban aad ka soo qaadatay. inta badan waxaad kaga hadlaysay hab dhaqanka bulshada Soomaalida. marka hal sheeko waxaa jirto oo aad ka soo qaadatay isticmaalka mobilada. sheekadii
موبايلك بح ما كحسستها ها buuggaas muuqaalada xiriirka wuxuu ka hadlayay habka ugu wanaagsan ee bulshadu u wada xiriir karto haddii ahaan la sheeko oo aynu nahay dad oral society la yiraahdo bulsho inta badan fariimahooda ama sheekadooda ama wax kasta isugu gudbisa afka qaab sheeka iyo oraah isugu gudbisa haddii uu soo baxay mobilka iyo telefoonadana weli dhaqankii waanu wadanaa oo hadda qofku ma badna inuu message ama fariin uu qoro laakiin waxa badan inuu waco qofka uu rabo haddii uu ka qaban waayo xitaa inta badan ma adeegsado inuu fariin isticmaalo oo sheego danta uu leeyahay marka barnaamij noocaas aan ka hadlayay oo habka loo sheekaysto iyo habka loo wada hadlo iyo xitaa fadhi ku dirada ay Soomaalidu caanka ku tahay iyo waxyaabaha ka khaldan ee u baahan in la saxo marka qaybta telefoonka waxay ahayd oo ku jirtay oo ahayd telefoonka iyo hababka ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo iyo waxyaabaha khaldan ee ku jira sheekooyinka soo qaatay waxa kamid ahayd ama ciwaanada ku jira ciwaan hoosadyada buugga ku jira waxa kamid ahayd ciwaan la yiraahdo war telefoonka naga qabo oo ku timid waa aadna way u badan tahay qof inuu waco qofkii uu rabay kadibna uu maanta oo dhan ku celceliyo haddii laga qaban waayo telefoonka iyadoo ay dhici karto sababta looga qaban waayo inay tahay qofka oo mashquul ah markaan telefoonka qaban karin mashquulka waxa geli kara inuu salaad tukanayo dhici karta inuu waxa dhici karta uusan maaragtay telefoonkaba inuu xaalad kale ku sugan yahay marka telefoonka uusan ba ag jooginba dab baa laga yaabaa inuu ku jiro isna uu ka maqan yahay waxa dhici karta inuu hurdo waxa dhici karta inuu telefoonkii codka marka ka gaabsan yahay oo silent yahay waxyaabo badan baa dhici kara oo qofku marka isma weydiinayo qofka uu waxay sababtu uu heli waayay kadibna uu ku celcelinayaa maanta oo dhan waxaana laga yaabaa halkaaba inuu khilaaf ka dhasho marka waxa ahayd ninkaasi marka intuu telefoon u wacay oo laga qaban waayay ayuu yiraahday war telefoonka naga qabo هذه